waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa sheekada ku saabsan jasiiradda ugu yar dunida oo ay ku nool yihiin 11 qof oo keliya. Jasiiradda Tafalaara waxaa ka taliya boqor waxaana loo yaqaanaa boqortooyada Tafalaara. Waxay masaafo ahaan ku fadhidaa 5 kiiloomitir. Waa jasiirad yar oo ku taala badda Mediterranean-ka oo u dhow gobolka Sardinia ee dalka Talyaaniga. Waa jasiirad soo jirtay tan iyo markii Talyaaniga aanan loo aqoonsanin dal. Waxaa jasiiradan ka taliya boqor loo magacaabo Antonio Bartolioni. Xitaa marka aad booqato waxaa adag inaad aqoonsato boqorka maadaama aadan ku arkayn astaamo gaar ah oo muujinaya boqornimadiisa. kumana labisana dhar gaar ah oo muujinaya boqornimadiisa. Boqorka Tafalaara wuxuu sanadkan u dabaaldegay xuska 180 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska jasiiradan. Dadka ku nool jasiiradan iyo boqorka waxay mas'uuliyad weyn iska saareen xuska munaasabadda oo looga hadlayo taariikhda jasiiradda ee jiilashii soo maray. Sida laga soo xigtay boqor Antonio Bartolioni, sodogii Giuseppe Bartolioni wuxuu ka soo qaaday Talyaaniga sanadkii 1807 kadib markii uu guursaday 2 gabdhood. xilligaas Talyaaniga looma aqoonsanin dal waxaana ka mamnuuc ahaa in halkaas laga guursado 2 gabdhood. wuxuu u soo cararay jasiiradan oo uu nolol cusub ka bilaabay. boqorka Tafalaara wuxuu heshiis nabadeed la galay dalal badan waxaana ka mid ahaa shakhsiyaadkii uu heshiiska la galay Giuseppe Garibaldi oo ahaa asaasiga Talyaaniga. kadib wuxuu heshiis la saxiixday boqorkii gobolka Sardinia Vittorio Emanuele taas oo ku saabsaneyd xoojinta amniga sanadkii 1903. maamulka gaarka ah ee jasiiradda Tafalaara ayaa soo afjarmay markii ay ciidamada gaashaanbuurta NATO ay saldhig ka samaysteen halkan. cidna looma ogoleen inay soo gasho ama ka baxdo jasiiradda. Talyaaniga weligiis jasiiradan uma uusan aqoonsan inay ka tirsaneed dhulkiisa, mana jirin dal aqoonsaday Tafalaara. boqor Antonio Tafalaara iyo qoyskiisa waxay xilligaas jasiiradda kaga baxeen doon dalxiis oo ka timid dhinaca Talyaaniga. laakiinse waxay markasta booqasho ku yimaadaan jasiiradda si ay dusha ugala socdaan nooc ka mid ah ariga lagu dhaqdo halkaas oo laga cabsi qabo inuu dabar go'o. jasiiradda Tafalaara waxay masaafo ahaan ku fadhisaa 5 kiiloomitir waxaana ku nool 11 qof oo keli ah. boqorka halkan ka taliya ee la yiraahdo Antonio Bartolioni ayaa maamula maqaaxida kaliya ee ku taala jasiiradan. haddii aynu eegno dalal kale ee la midka ah jasiiradda Tafalaara waxa ugu horeeya Tonga. Tonga waa dal ku yaala badda Pacifiga wuxuu masaafo ahaan ku fadhiyaa 748 kiiloomitir. waana dal uu sahan ku tagay Captain James Cook sanadkii 1773 wuxuuna ninkan ugu magac daray dalkaas jasiiradda saaxiibtinimada. dadkii deganaa halkaas ayaa doonayay inay dilaan James Cook. dal kale ee la midka ah jasiiradda Tafalaara waa Brunei. Brunei waxay masaafo ahaan ku fadhidaa 5765 kiiloomitir waxaana ku nool dad gaaraya 4,013,000 oo qof. dadka halkan ku nool lagama qaado wax canshuur ah. suldaanka ka arrimiya Brunei wuxuu ka mid yahay dadka ugu taajirsan dunida. dal kale ee la midka ah jasiiradda Tafalaara waa Eswatini ama Swaziland sida u taqaanidba. Eswatini waa dal yar oo ku yaala Afrika wuxuuna masaafo ahaan ku fadhiyaa 17363 kiiloomitir. quruxda iyo bilicda wanaagsan uu leeyahay dalka waxaa loo magac daray dalkii quruxda badnaa. dal kale ee la midka ah jasiiradda Tafalaara waa Lesotho. wuxuu dalkan dhacaa koonfurta Afrika masaafo ahaan wuxuu ku fadhiyaa 30,000 kiiloomitir waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaasay 2 milyan oo qofood.